halkan waa degmada Iidaan oo dhacda bariga Mudug. Degmadu waxay ku taalaa goob istiraatiiji ah oo ku fiican dhaqashada xoolaha iyo kalluumaysiga. Halkaana waxay u jirtaa qiyaastii ilaa 230 kilomitir. waa goob hodan ku ah marka loo eego qeyraadka ku jira gunta hoose ee badda iyo kan bariga. waa meel ku fiican dhaqashada xoolaha oo leh dooxooyin badan. waa deegaan arankii abaarta marna aan laga waayin dooga cagaaran ee biyuhu dhex jibaaxayaan. waxay horey u ahaan jirtay marsad dabiici ah oo laga dhoofiyo argoosatada iyo kalluunka noocyadiisa kala duwan. waxay lahayd warshado iyo goobo lagu keediyo qeyraadka dihan ee ku jira badda. laakiin marka hadda aad eegto waxaa ka muuqda burbur baahsan oo ku yimid adeegyada kala duwan ee dadka deegaanku ay ka heli jireen. sida uu inoo sharxayo gudoomiyaha degmada Afbarwaaqo Cabdullaahi Jaamac Doore. waa maxjarkii dhamaa oo Iidaan Fishing Company talaagaduhu ay yaaleen malayga lagu qali jiray. waa u jeedin meeshaana malayga lagu qali jiray. malayga iyo wax alaala waxay u baahan tahay in la caawiyo oo hawshii sida ahayd dib loogu soo celiyo. waxaan u baahanahay marka wasaaradda kalluumaysiga galmudug iyo federaalka iyo hay-adaha caalamiga ahba oo wax kaalmeeya in naloo maalgeliyo meeshaan Iidaan Fishing Company oo dibna kugu soo celiyo si kalluumaysatada meelay wax ku qaboojiyaan meelay wax ku qashaan. dadka ku dhaqan Iidaan iyo deegaanada ku dhow waxay waqtigan cabsi weyn ka muujinayaan ama loo malaynayo inay ku jiraan haraadiga sunta warshadaha sameeyo hubka halista ah nukliyeerka. waa kan gudoomiye Cabdullaahi Jaamac oo mar kale arrinka ka warbixinaya. inaan dadweynaha dowladda federaalka dowladda galmudug in allaale inta ka dhacaysa aantaan oo ah waxyaabaha haraadiga ah oo badda gunteeda la dhigo kabacdeen kasoo furatay halkaa taalla. waa u jeeday sida qof u noqotay oo u baaba'day. waa u jeediin waxay u baahan tahay ummadda ilaahay ummadda yani adduunka dowladda kumeelgaarka dowladda galmudug hay-adaha wax gargaara caalamka oo dhan in nala ka soo gaaro ahaantaan inay dilaxaday taagan tahay. wax u dhiman hadda ma jiraan balseedu saas u fiqan dhinac walba waa sidaas weeye. waxaan codsanaynaa oo ka codsanaysaa aadanaha dowladaha adduunka waxaan ka codsanaynaa inay meeshaa yimaadaan. aniga oo ah gudoomiyaha deegaanka Afbarwaaqo iyo Iidaan iyo wixii la xiriira ayaa waxaan ka codsanaynaa dadweyne adduunka waxaan ka codsanaynaa haantaan ah haraadiga sunta ah oo adduunka dhan khatar ku ah in deegaankan uu noqon doono deegaan laga barakaco. iyadoo qaar ka mid ah khubarada caafimaadka ay sheegeen haddii ay haantani qarxdo ay saameyn weyn ku yeelan karto ilaa iyo 100 kilomitir oo square ah taas oo la sheegay inay saameyn weyn ku samayn doonto dadka. degmadu waxa ay leedahay goobo ku wanaagsan dalxiiska. halkaad arkaysaan maaha jasiirad waa Iidaan daawadayaal islamarkaana goobtan wadda la yiraahdo biyuhu ka soo dhacayaan waxay ku shubayaan badda islamarkaana waa goob marka la eego xagga dalxiiska aad ugu qurux badan. sida uu sheegay gudoomiyaha degmada Afbarwaaqo Cabdullaahi Jaamac Doore goobtan waxay ahaan jirtay goob marka la eego dadka kalluumaysatada iyo dalxiisayaashuba intaba ay u soo dalxiisaan. waana meel marka bilicda la eegana aad u qurux badan. qalabka oo ka daa meelo qokada ah ayaa halkaa ka buuxaya. markii hore waa ku qubaystaa markii hore waa la cabaa. waxaan ku socdaan waqtiyada roobka ahayna ay aad u socdaan. sidoo kale Iidaan ilaa Hobyo waxaa ku yaala dhowr ceel shidaal oo haddii loo howlgalo wax soo saarkooda ay Soomaali badan tuuri doonaan faqriga.
dal waliba dadkiisa ayaa dhisa halka bulshada Soomaaliyeed ay waqtigan la daala dhacayaan dhibaatooyin badan oo ay ugu weyn tahay shaqo la'aanta.